بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد dhammaan dadka mas'uuliyiinta culimada dhalinyarada aqoon-yahanka siyaasiyiinta waxgaradka kale ganacsatada amaanta munaasabadan ka soo qayb gal dhamaantii waa in salaamay salaamka u salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Minneapolis waxay ugu dambeysay 2018 in kastoo aan u imid markaas arrin siyaasadeed laakiin cawada waxaan u joogaa waa arrin bid'aadanimo waa inii mahad celinaya runtii sida xurmada leh oo aad u soo ajiibteen munaasabadan ka soo qaybgalkeeda. waxaan kaloo u mahad celinayaa hay'adda haro oo iyo guddiga gurmadka abaaraha halkan ka dhisan runtii labadaba waa inii mahad celinayaa qabanqaabadan aad samayseen. wajiyo badan oo aqaano waa ii muuqdaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar qaralaasiyo waa runtiis 75 markuu ka sheekeynayay oo buulaburta noogu yimid asagoo ah arday shaqada qaran u socda markaasna diin uu faafinayay oo dadka walaalahii jiilka naga waaweyn ninkii diinta barayo ahaa oo waxaan tusay ilaa xilligaas aabisna qofka weyn oo buulaburta sarfiga laga akhristo sarfiga ma taqaaniin dad badan aqoonina jira amalayna sarfiga laga akhristo waa sarfiga waa qayb kamid ah cilmiga luqada carabiga dadka naxwiga yaqaan laakiin sarfina waa jira. marka sheekh Umar iyo asaga dhan caa'ilo diino ka soo jeeda runtii cawada inaan arko xilli dheer kadib oo ku faraxsanahay asaga iyo culimada kaleba. intaasna halkaas uga baxo xaaladda dalkeena ka jirta runtii maalin dhaweed shirkii oo cali sheegay gabadha Mareykanka madaxda ka ah USAID-ka ay uga dhawaaqaysay 150 milyan oo cusub. Mareykanka markii hore 770 milyan ay bixiyeen haddana 150 milyan cusub ay bixiyeen. waxaan u maleynayaa waa dawladda kaliya runtii ilaa haddeertan gurmadka abaaraha Soomaaliya si sax ah uga jawaabaysa. dawladdiina waa dawlad aad u fiican jaranaysna Soomaaliya haddeertan u ah runtii sida ay u soo dhaweysay madaxweynaheennana waa aragteen iyo fursadda la siiyey iyo qaabilaadda heerka sare ee la siiyey intaba. marka waxaa moodaa Mareykanka inuu yahay dawlad Soomaaliya runtii dhinac taagan. marka in la sii laabo dadaalkaas waa in ku dhiirigelinayaa dadkii ka shaqeeyay ama congressad woman aad ilhaan ama dadkii dhan kale elected officials ka ah iyo dadkii kale activistiyaasha saameynta leh intaba in la xoojiyo dadaalkaas waa muhiim oo runtii loogana mahad celiyo arrintaas ayada ah. waxaa dawladda Itoobiya ka socday safiirka Itoobiya marka wuxuu yiri u fadhiyay New York hadal uu yiri aad ii taabtay. wuxuu yiri xanuun ka weyn ma jiro dhahay inaad dad bariso xanuun ka weyn ma jiro yiri inaad dad bariso xanuun ka weyn ma jiro dhahay inaad qof baan wax ka qaado qof macluul dhimanayna aasiiso. you take from the hungry and give to the starving. marka waa dhib badan tahay Soomaaliya hadda labadaas dad waaweyn aan nahay in adduunku soo istaagno tuugsano xanuun ka badan marka wax tuugsanaysa runtii ma jiraan ama idinka aan dadkiina inay tuugno oo aad gargaartaan ama dadkaas kale ee adduunka waxaysta aan barino arrinka xanuun badan runtii ma jirto aad u xanuun badan tahay. dadka marka ay dhibtay arrintaas qaarna way ka jawaabaan oo ama shaqadan oo kale uga jawaabaan hadda la qabtay intay dadkooda dhibka uga baxaan qaarna way dhibsadaan qof jecel baryada ma leh. qaar waxaa arkay badan oo dadkeena kamida oon jeclayn in xataa dhibaatadan la sheego oo mas'uuliyiin siyaasiyiin ay ku jiraan oo madax qaran ay ku jiraan oo dhibkan in la qariyo rabo inaan la sheegin oo inaasa u dhibaataysanahay waxay ku leeyihiin karaamadeenna iyo dadnimadeenna dhibaysaa. saas daraadeed waxaan yaa la sheegin maxaa dad loo bariyaa maxaa loo tuugsanayaa hal la qariyo wadankeena waa fiican yahay meelo laga yaabo inay xoogaa yar qurxan yihiin ayay soo sawirayaan markaas leeyahay dalkeeni waa kana horumarkaan ku tilaabsaday dhibaato ma jirto. marka waa dambi kale weyn inaad dad dhibaataysan ee la caawilaha isku dayda inaad qariso oo aad u muujiso inaysan dalkii wax dhibaato ka jirin. abaaraha Soomaaliya ka jira waa la sheegay meesha ku daawateen macnihii culayskooda waxa keenay waxa waaye in 4 xilli roobaad la waayay midka shanaadna ilaahay ha keeno waana baryaynaa
oo sida saadaasha hadda la sheegayo uusan asna mirihiisa aysan badnayn ayaa taas marka waxay keentay dadkii inay xoolahoodii iyo beerahoodii ay beerihiina wax lagu tabcado roob lagu tabcado la waayo xoolihiina wax la siiyay la waayo waa aragteen 3 milyan ka badan hadda dhintay